maanta waxaan isdul taagi doonaa warbixintan ay qoreen wargeyskan waxayna ciwaan ugu dhigeen ibuprofen left women in 17-day coma with peeling skin and damaged eyes taasoo micnaheedu tahay kaniiniga ibuprofen waxa uu haweeneydan u keenay ama ku sababay 17 maalmood oo kooma ah sidoo kalena maqaarka oo fiiqmay iyo indhaha oo ka dhaawacmay balse intaasoo dhibaatada sidoo uu keeni karaa haweeneydan kaniini xanuun baabi'i ah si aad xogto dhameystiran u fahanto ka bogasho wacan haweeneydan ayaa sheegtay in ay qaadan jirtay ibuprofen si ay u yareyso xanuunka caadada kaniinigan ayaa u keenay koomo 17 maalmood ah iyo finan ka soo baxeen sidoo kale maqaarka oo dhan ayaa ka dildilaacay haweeneydan waxay qaadatay daawooyinka xanuun baabi'iyaha ah ee loo yaqaano OTC ama over the counter painkillers oo micnaheedu tahay daawooyinka aanan dhakhtarka ku qorin oo farmashiyaha aad ka soo iibsan kartid adiga oo aadan wadan warqad uu dhakhtar ku qoray marka daawooyinkaasi ayay qaadatay sidii ay horeyba u samayn jirtay laakiin waxay bilowday in ay la kulanto cuncun fudud oo isha ah dhowr maalmood kadib markii ay soo toostay iyada oo nabro dhiiga afka kaga soo baxeen maalintii xigtay haweeneydan oo ah 31 jir ayaa aaday isbitaalka halkaas oo xaaladeeda ay kasii daraysay wax yar kadib wejigeeda oo dhan waxaa daboolay nabro sidoo kalena waxa adkaatay inay wax aragto wixii xigay ee haweeneydu xasuusato wuxuu ahaa kasoo toosista koomada 17 maalmood kadib taas oo ka dhalatay xaalad naadir ah oo jirku ka falceliyay daawooyinka waxay la mid ahayd sida in gudaha layga gubay oo kale ayay tiri iyada oo hadalkeeda sii wadato waxa ay tiri ma garanaynin waxa igu dhacay waxaan ogaaday in jirkayga oo dhan uu faashad ku xiran yahay aragayga gebi ahaanba waxa uu noqday mid caad saaran waxaa dhuunta iiga jirtay tubo laakiin wax xanuun ah ma aanan qabin sidoo kale waxa ay tiri waxaan ogaaday inaan aad daciif u ahay oo ay wax aad u daran igu dhaceen haweeneydan waxay la ildaran tahay xanuunka loo yaqaano Stephen Johnson syndrome oo ah xaalad dhif naadir ah taasi oo sababtay falcelinta jirka uu si xad dhaaf ah ugu falcelinayo daawada gaar ahaan daawooyinka qalalka antibiotica iyo anti-inflammatory painkillerska daawooyinka loo yaqaano anti-inflammatory drugska oo loo isticmaalo xanuunka iyo caabuqa lagu daaweyn karo asal ahaan xanuunkan waxa uu keenaa in jirka uu weeraro maqaarkiisa isaga oo keeno finan xanuun leh iyo dildilaac ku yimaado maqaarka daaweyn la'aan xaaladdu waxay noqon kartaa mid nafta halis gelisa marka xaaladan ayaa haweeneydan ku reebtay nabaro waxayna dhaawac weyn u geysteen indhaheeda waxay tiri waxay dhaqaatiirta ii sheegeen in ay tahay mucjiso in aan badbaaday qoyskaygu iima ogoleen in aan isku eego ama isku fiiriyo miraayada dhowr maalmood sababtoo ah dhaawaca wejigeeda gaaray awgeed iyada oo hadalkeeda sii wadato waxay tiri markii aan ugu dambeyntii miraayada isku eegay waxaan arkay qof aan aqoonsan waayey waxay bilowday daaweynta degdega ah ee dhakhtarka indhaha si ay u badbaadiso araggeeda waxay ku dartay isaga dhakhtarka indhaha ayay ka wadaaye wuxuu kaloo yidhi waxaad u baahan tahay in lagugu sameeyo qaliin si degdeg ah ama sida ugu dhaqsiyaha badan haddii kale ishaada ayaa lumi doonto micnaha araggaaga ayaad ku weyn doontaa iyada oo hadalkeeda sii wadato waxa ay tiri waxaan ka soo baxay xafiiska aniga oo oynayo tan iyo qaliinkii ugu horeeyay haweeneydan waxaa lagu sameeyey in ka badan 24 qaliin oo ay ku jiraan cornea transplant amniotic membrane transplant iyo stem cell transplant micnaha waxaa laga bedelay xuubka yar ee isha ku dahaaran iyo mid kale kasii hooseeya oo loo yaqaano amniotic membrane transplant iyo sidoo kale dhuuxa lafaha hadda waxay leedahay 40% araggeeda waxayna sii wadaa in 2 toddobaadba mar la baaro si ay ula socoto indhaheeda haweeneydan ayaa tiri caqabadaha ugu adag ee aan ka gudbi karo waa ogaanshaha in aanan marnaba yeelan karaynin aragtidii aan mar lahaa micnaha qaabkii mar aan wax u arki jiray in aanan u arki karaynin waxay hadalkeeda kusoo gabagabaysay waxaan jeclaan lahaa in aan helo daawo si aan araggayga mar kale dib u helo laakiin waxaan dareemayaa sidii dagaalyahan warbixinteena intaa ayay ku eg tahay macluumaadkan yaanan loo fahmin in aan kala jeedo haddii aad daawooyinka qaadato waxaad wajahaysaa xaaladan may xaaladan oo ah Stephen Johnson syndrome waa xaalad dhif naadir ah qof walbana kuma dhacdo kaliya macluumaadkan u qaado cilmi ahaan wabillahi tawfiiq muuqaalkeena halkaas ayuu ka egyahay waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu alla idmo khayr badan